sida uu sheegay wargeyska The Financial Times ayaa waxa uu tilmaamay in dokumentiyo sir ah oo la arkay ay tilmaamayaan in dowladda Ruushku ay dowladda Iiraan la gashay heshiis loogu dhisayo difaaca cirka kaasi oo ku baxaya 500 milyan oo euro. qoraalka ayaa la tilmaamay inay arkeen qaar ka mid ah wakaaladaha wararka ee adduunka. haddaba maxaa dhici karaya oo la filan karaa waqtigan? saddex arrin baa loo kala qaadayaa dagaalkan iyo xaaladiisu in ay noqon karayso marka gobolka bariga dhexe si qoto dheer loo eego. khubradana waxay ku arooriyeen arrintan. kow, in la gaaro heshiis diblomaasiyadeed oo lama filaan ah oo xiisada dejin kara, taasi oo yar tahay marka la eego loolanka iyo weliba miisaska gorfaynta ka dhex taagan. weerar kooban oo Mareykanku uu ku qaado dowladda Iiraan, kuwaasi oo laga yaabo in aysan tabar badan keeni karayn Iiraanna aysan wax weyn ku qaadan. iyo weliba tan aadka looga baqayo loona badinayo gobolka bariga dhexe in uu noqdo waa dagaal ballaaran oo sanado badan socda isla markaana ay ku lug yeeshaan kooxo kala duwan oo u dhigma baa la yidhi ugu yaraan kii dagaalka Ciraaq lagu qaaday. inkasta oo dowladdii Saddam Hussein si fudud cagta loo mariyay, haddana waxaa ka dhashay dagaal aad u xoogan oo ururo hubaysan oo galbeedka ka aragti ah ay soo baxeen. maalinta Isniinta ahna waxaa la filayaa in dalka Mareykanka uu ka dhoofo xogayaha muraha dibadda ee waddankaasi Marco Rubio, isla markaana uu gaaro Israel, halkaasi uu kula kulmi doono ra'iisul wasaare Benjamin Netanyahu. arrintani waxay ka dhigan tahay xiisadda Israel iyo Mareykanka ee kala dhaxaysa Iiraan in ay tahay mid aad u xoogaysanaysa, tashiga labada dhinacna uu aad u badan yahay, inkasta oo kanshada la haystana ay yar tahay. isla wararka bariga dhexe ayaan ku guda jiraaye, dowlado fara badan ayaa bilaabay in ay muwaadiniintooda ka daadgureeyaan Israel dhulka Falastiiniyiinta ay ka haysato iyo weliba dowladda Jamhuuriyadda Islaamiga Iiraan. dowladahan waa kuwa ugu xogta iyo weliba xuuraanka badan caalamka, kuwaasi oo hadda muujinaya in dagaaladu ay aad u kordhayso. dalalkaasi waxaa ka mid ah Mareykanka oo safaaradii Mareykanka ee Israel u ogolaaday shaqaalaha aan muhiimka ahayn inay halkaasi isaga tagaan iyo qoysaskooda, isla markaana laga soo qaado gudaha Israel. boqortooyada midowday ee Ingiriiskana waxa ay si kumeel gaar ah uga saartay diblomaasiyiinta Iiraan, halka qaar ka mid ah shaqaalihii Tel Aviv ka joogayna loo raray meel aan gudaha Israel ahayn, sida wargeysada caawa ay qorayaan. waddanka Faransiiska ee ka mid ah dalalka ugu tunka weyna Yurub xagga siyaasadda iyo militariga waxa uu kula taliyay muwaadiniintiisa inaanay u safrin Israel, magaalada barakaysan ee Qudus iyo daanta galbeed, isla markaana ay muujiyaan feejignaan xoog leh, taasi oo muujinaysa in dagaaladu ay bilaaban karaan. Jarmalka muwaadiniintiisa waxa uu uga digay safarka Israel iyo Iiraan labadaba. Shiinaha muwaadiniintiisa waxa uu ugu baaqay inay si degdeg ah uga baxaan Iiraan, isagoo ku wargeliyay in Israel kuwa joogana ay kordhiyaan taxadarkooda. Kanada muwaadiniinteeda ku sugan Iiraan ayay ku boorisay in ay hadda ka soo baxaan, halka Australiana tallaabadaasi la mid ay qaaday. wadamada Serbia iyo Poland ayaa ina muwaadiniintooda daadgureynaya. Hindiya iyo Qubrusna muwaadiniintii ayay ugu baaqeen kulana taliyeen in ay ka baxaan gudaha waddanka Iiraan. dhammaan dowladahan tallaabooyinkan ay qaadeen waxaa lagu dhisay xogan laga helay hay-adaha sirdoonka ee wadamadaasi. maxay dowladuhu u walaacsan yihiin xilligan ayaa ciwaan hoosaad looga dhigay warbixinta. suurtagalnimada dagaal lama filaan ah waa mid ka mid a qodobada taagan. waa raggan taale iyo duqaymo cirka oo la isku adeegsan karo, xasilooni darri degdega oo baahda iyo muwaadiniinta qaar oo la afduubto, iyo weliba muwaadiniinta oo guud ahaanba dowladahaasi ku adkaan karaysa haddii dagaalla halkaasi ay ka bilowdaan. isla wararka Iiraan ayaan ku sii soconayaa. waxaa muuqanaysa dowladda Iiraan ahayd inay la soo baxayso farsamo habeenka ka dambeeya ashqaraarkeeda leh. warbixin qarsoodiya oo la helay ayaa tilmaamaysa, isla markaana la tusay wakaaladda wararka ee la yidhaahdo Reuters, in ay muuqato baa la yidhi in dowladda Iiraan 60% uraniumkii ay haysay ay kordhisay, halka haddii ay gaarsiiso 90% loo adeegsan karo samaynta hub nuclear. marka
qarka ay u saaran tahay dowladda Iran in ay samaysan nuclear. arrinta kale oo la yaab kale waxaa ka mid ah oo hay-adan IAEA ay qortay caawa oo warbaahinta loo qeybiyo qaarkoodna si qarsoodiya loogu diray dhowr dal oo muhiim ah. waxaa lagu tilmaamay arrintan in lagu hayay warshada Asfahan ku taala hoosteeda laguna kaydinayo muddo dheer sida khubaradu ay tilmaamayaan arrintani ee qeexaya. hase haatee dowladda Iran oo hore u hadashay waxay tiri col in nabad labadaba waan u joognaa inaan ka jawaabno, laakiin dowladahan tallaabooyinka ay qaadayaan waxay u muuqataa kuwa aan xilligan la isku halayn karin oo inta badan wararka la soo bandhigaya ay yihiin kuwa duraya dowladda Iran iyo waliba sumcaddin lagu samaynayo bay yiraahdeen siyaasadooda iyo afkaarahooda diblomaasiyadda maadaama Maraykanka ay loolan adag la galeen. haddaba intaa markii aad isu geysato ma kula tahay Iran inay ka badbaadi garayso dagaal dhaca? adeen ku daynaya qodobka Iran haddii aan intaa ku dhaafo waxaan galayaa dalka Pakistan iyo Afghanistan. dagaalo qaraar baa u dhaxeeya saacadihii la soo dhaafay. dagaalada 10 ruux ayaa ku geeriyooday kadib markii dhinacyadu ay duqeymo iyo dagaalo toos ah isku adeegsadeen. dowladda Pakistan 22 bartilmaameed oo duqeyn ayay samaysay, waxaana la soo warinayaa in ay tani ka dambayso xiisadda sii xoogaysanaysa. afhayeen u hadlay dowladda Afghanistan ee Taalibaaniyiinta ah ee lagu magacaabo Dabiixullah Mujaahid waxa uu leeyahay dagaalkan waxaa la gaaray waqtiga la joojin lahaa, isla markaana dhinacyadu ay degdeg u qaadan lahaayeen baaqyada ka imaanaya caalamka. dalka Qatar oo labada dhinac hore u wada hadalsiiyana waxa uu leeyahay colka jooja oo miiskii Qatar iyo Dooxa